magaalada Hargeysa ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa shaaciyay daahfurka tartanka saxaafadda sanadka oo ay sheegeen in abaalmarin lagu helayo. Warbixinta waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Cumar Serbiya. ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier waxa uu shaaciyay tartan ugu talagalay inay ka qayb qaataan warbaahinta qoraalka ah ee ka howlgala gudaha Somaliland sida website-yada iyo wargeysyada. tartankan oo ururku sheegay inay ku bixin doonaan abaalmarino iyagoo la kaashanaya hay'ado caalami ah sida UNDP ayaa xoghayaha ururkaasi Maxamed Rashiid Maxamed Faarax uu faahfaahiyay 4 qaybood oo tartankaasi lagu galayo. ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier wuxuu idin sheegayaa ama idin wargelinayaa dhammaan wariyaasha Somaliland ee ka kooban qoraalka in jaayisad ama award la siinayo sanadkan tartan loo galayo taasoo ka hadlaysa wariyaha ka soo qora 4 qaybood oo kamid ah qoraalada koow dumarka ama haweenka genderka number soo yaqaano dhalinyarada iyo darbi chiefka مثلا وعيالك child and children baa ku qoran arrimaha asaasiga oo nolosha iyo investigative journalism afartaas ayaa wax lagu bixinayaa award. Mustafa Khayr oo ka socday hay'adaha iyagu ururkan Soldier ka caawinaya bixinta abaalmarinada ayaa isna ka sheekayay sida loo siin doono suxufiyiinta iyagoo abaalmarinadaasi mutaysta. waxa abaalmarinada ay Soldier guddoonsiinaysaa suxufiyiinta guuleystay 10 December oo ah maalinta xuquuqda insaanka ayaa la guddoonsiinayaa. Soldier ayaana hawsha runtii garwadeenka ah markay noqoto Somaliland. sidaasana hawshu u dhacaysa hadii la hayraho runtii waana uga mahad celinayna Soldier iyo saxaafadaba. waxaan rajaynaynaa in suxufiyiinta Somaliland ay si weyn tartanka uga qayb gali doonaan. tartankan oo qabashada codsiyadiisu ka bilaabmayaan 23 bishan oo ku beegan Arbacada toddobaadkan laguna dhawaaqi doono natiijadiisa 6 bisha 12 ee soo socota ayaa noqonaya kii ugu horeeyay noociisa ah. Cumar Serbiya, Somali Channel, Hargeysa. magaalada Hargeysa ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa shaaciyay daahfurka tartanka saxaafadda sanadka oo ay sheegeen in abaalmarin lagu helayo. warbixinta waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Cumar Serbiya. ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier waxa uu shaaciyay tartan ugu talagalay inay ka qayb qaataan warbaahinta qoraalka ah ee ka howlgala gudaha Somaliland sida website-yada iyo wargeysyada. tartankan oo ururku sheegay inay ku bixin doonaan abaalmarino iyagoo la kaashanaya hay'ado caalami ah sida UNDP ayaa xoghayaha ururkaasi Maxamed Rashiid Maxamed Faarax uu faahfaahiyay 4 qaybood oo tartankaasi lagu galayo. ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier wuxuu idin sheegayaa ama idin wargelinayaa dhammaan wariyaasha Somaliland ee ka kooban qoraalka in jaayisad ama award la siinayo sanadkan tartan loo galayo taasoo ka hadlaysa wariyaha ka soo qora 4 qaybood